nin caamiyaha hadda ka hor oo diinka qiimihiisa aanan hadda sidaa u sii wada ogeyn laakiin qof muslim ah oo toosan ah qoftii cunugeeda dugsi quraankiisa moogta qof toosan waa laakiin qiimaha quraanka iyaguna wali fahamsanayn macallimkii cunuga quraanka dugsiga u geystay quraanka ilaahay u sahal quraanka markuu bartay macallinkii waa wacay wuxuu yiri cunuga quraanka waa bartay waa ka dhigistay adeer waxaan rabaa bal ducadii ina iska keento wuri adeer wuxuu yiri aniga duca kuma haayo wuri wax duca kuma haayo wuri cunuga quraanka kuma yaqaano bas Allah kugu anfaco macallinka xoogaa waa xanjeerto wuxuu isiri odaga canaano markaasuu yiri haye ma quraanka wuri mase waxaan ka rabaa dhiibeeyo wuri markaasuu yiri hal kalimaan ku leeyahay horta aniga wax iga helimaysido wuri laakiin intaada wax samaynin kalima waxidan ku dhahaa wuri ee iga dhigayso wuri wuxuu yiri adigoo socdaalaho wuri hadaad qof u tagto wuri nin meel degan dadku dad baadiyaha yani hermiya beera u falano wuri waxa tiri wuri meel yaroon salka dhigdhoon faldaan rabaa markaasuu yiri halahan cad aniga iga maroone bal juqdaan ina tagtid inta falow juqdi uu ku geeyad falatayo waagi hore mugta makiintan iyo waxaan ma jirin juqdi waad falatay hadaad falatay waa cadaysat marka cadaysay waxa ku soo baxay biirta badar ay ku dhashay wala arfuuji jira oo markaas inta la lumeeyo la lumcad kadib badar uu tacbi jira marka beertii badar ay ku dhasho badarkii adigana waa cunto wuri ilmahaagi reerkaagi qoyskaaga ku noolaateen wuri beerta suuri adma ku nafci qabowri masan ninkii ku geeyay shalay ma beerta ka fala ku yiriyo wuri beertaas ana ku nafci qabowri badarkii dhashay ana cunaayo ninkaas wuxuu ku dhiifo haayo cunugan aniga marka ku keenay hal bil waqti iska ma gelino wuri subax kasta adaa soo dheelmahiiso wuri wax qori ma aqaan hadda wala xuu qora wax akhri ma aqaan hadda wala xuu akhriha wuxuu arkay inay quraan kala kalma hadda waa kala heliyaa adiga amba habaar oo miiska dhaafo wuri marka macna adaa ku qasaaro badan wuri aniga waa dhala waa soo kurshay laakiin juhdiga aad gelisay aniga ma bixino ayaa adiga adaa qasaaro badan wuri marka adiga beertaadi marka dib ku qabo wuri ama iska dhaaf macallimo marka dika wuxuu ahay nin xakiima macna xoolaha uu dhiibay kelimada macallinka uu yiri ka qiimo badneed xoolaha uu diiday waxa ka qiimada kelimada macallinka uu yiri waa aqli xili الدين والنصيحة adiga waxa tahay qofkii ku baray adiga waxa tahay iyo shaqada qabat qiimaha ilaa qofkii ku sheegtay waa ka fiicanta qof xoolo ku siisay xoolo hal biri lama hano macna walax wuxuu jiscinahan u siiyay zawadahu shay'an dul hayati la noolahay intuu nool yahay dhan wuxuu ku noolahay oo jiscina u siiyay aadam markii uma santihiin fadiiladii quraanka nabigeena uu ka tilmaamay alayhi salaatu wasalaam amba saxaabada ay ka tilmaameen waqtigan Isa maxayna marka waxaan rabaa kalimadii ina ma isku soo gaabay gana raali ahaatiin waa wixii leega filahaayay wax badan oo kamid ah dhimayeen aadaas uma santihiin marka macallimiinta mar labaad iyo mar saddexaad waxa tihiin dadkii ilaahay manzila fiican u dooray inaad meel sare aad joogtiin ogaadha ya hoos oo naqanina muxuu yiri sheekh iska lahay kitaabkan dhilxo oo ahay tabarakadul ula kafa bil mar'i aaran an tarahu min ash-sha'n ar-rafi' ila inhitati qofka ceeb waxa ugu filan meel sare soo joogo inuu meel hoos doorto marka kalaam rabbil alamin qofta wadiifo ilaahay uga dhigay malaayiin xasanaada maalintii shaqaysan kartaa meel kora joogtaa adduunyo danii'a hoos u digan aad u maadsantii salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh